marka laga hadlayo wakhtigu waa waxaan la arki karin laakiin aan si joogto ah u dareenno. falsafadaha iyo cilmiga casriga ah waxay leeyihiin aragtiyo kala duwan oo ku saabsan wakhtiga. dadka qaarkood waxay u arkaan inuu yahay wakhtigu wax ka dhashay dhaqdhaqaaqa sida socodka dayaxa iyo iftiinka qorraxda, halka qaar kalena ay u arkaan wax la qiyaasi karo balse aan la fahmi karin si buuxda. islaamku waxa uu arkaa wakhtigu inuu yahay nimco Alla bixiyey, waana mas-uuliyad inaga wada saaran inaannu si wanaagsan u adeegsanno. aayado iyo xadiisyo badan ayaa wakhtiga ka hadlay, sida aayadda suuratul-casri oo ina xasuusinaysaa in qof walba uu khasaaro marka laga reebo kuwa xaqa iyo camalka wanaagsan sameeya. waxa ay muujinaysaa in wakhtigu yahay mid qiimo leh oo aan la lumin karin. innagoo u sii gudbaynaa cilmiga casriga ah sida fiisigiska, saynisyahankii caanka ah ee albert einstein waxa uu sheegay in wakhtigu uusan ahayn mid joogto ah, balse uu ku xidhan yahay xawaaraha uu qofku ku socdo iyo meelaha uu joogo. tani waxa ay keentay aragti la yidhaahdo time dilation ama wakhti khallooc, taasoo muujinaysa in wakhtigu uu si kala duwan ugu socdo meelo kala duwan, waxaana suurtagal ah in wakhtiga si kala duwan loo dareemo marka uu qofku meelo kala duwan uu ku sugan yahay. wakhtigu ma aha mid sugan oo waa mid relatif ah. waxa uu uga jeedaa inaannu wakhtigu u sinnayn walaxda socota iyo taagan, sidoo kalena inaannu u sinnayn walaxda culus iyo midda fudud. einstein aragtidiisa relativitigu waxa uu ku sheegay in wakhtigu relatif la yahay walaxda, sidaa darteedna mar kasta oo xawaaraha uu kordho in wakhtigaagu uu gaabinayo. mar kasta oo aad cufisjiidada badan ama garaafati badan meel leh aad joogtidna in wakhtigaaga uu gaabinayo. marka aad gaarto xawaaraha ilayska, wakhtigu waa uu istaagayaa oo waxaad gelaysaa xaalad immortal ah ama xaalad waaritaan ah. tusaale ahaan, adiga oo 20 jir ah haddii aad raacdid markab cirayd ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo spaceship oo aad ku socotid xawaaraha ilayska muddo 5 sano oo toos ah, waxa aad soo noqonaysaa adiga oo 25 jir ah. dadkii aad dhulka kaga tagtay iyaga oo 20 sano jirana waxaad u soo noqonaysaa iyaga oo 65 sano jira. ma dareemaysid in wakhtigaagu uu gaabiyey, balse xaqiiqatan waa uu gaabiyey. taana waxaa la mid ah meerayaasha godadka madow u dhow ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo black holeska, in wakhtigooda uu ka gaabinayo kan dhulka. oo waxaa jira meelo ay saacaddiisu u dhiganto 7 sano oo dhulka ah. waxaa la sameeyey tijaabooyin kala gedisan oo waxaa la dhigay 2 saacadood oo atomic clock ah. saacadaha atomic clockguna waa saacado awood badan u leh inay iska caabiyaan cimilada, islamarkaana qalqalkooda iyo inay hallaabaan ay aad u adag yihiin. ayaa mid ka mida saacadahaasi waxaa la saaray satarleed xawaarihiisu sarreeyo, midna dhulka ayaa la dhigay. saacadahani waxa ay sheegeen intii xawaaraha sare ku socotay ay daqiiqado ka dambaysay tii dhulka taallay, waxa ayna caddaysay in aragtidii einstein ay noqotay mid saxa. haddii aad xawaaraha ilayska ku socotid, wakhtigaagu waxa uu noqonayaa seera ama eber. taana waxaa caddayn u ah baartikal kastaaba waxa uu baaba'aa marka laga reebo borotoonka oo ah baartikalka uu iftiinku ka samaysan yahay. taana waxaa u sabab ah inaannu ilaysku wakhti lahayn. marka aan ka hadlayno jiritaanka wakhtiga, waxaa muhiim ah inaan isweydiinno, wakhtigu ma yahay wax jira oo la taaban karo? qaar ka mid a falaasifadu waxay yidhaahdeen wakhtigu waa sida xasuusta maskaxdeenna oo aynu u cabbirno isbeddelka hareeraheenna ka jira, laakiin haddana waa wax aynan maamuli karin oo isaga inaga socda. ugu dambayntii, wakhtigu waa wax inaga wada dhexeeya oo ay adag tahay inaan si buuxda u fahanno. waxaase hubaal ah in qiimihiisa iyo saamayntiisu ay tahay mid weyn. waxaaynu ku noolnahay wakhtiyo kala duwan, waana inaannu ogaanno sida aanu uga faa'iidaysan karno. ku soo biir boggeenna haddii aadan ku xirnayn. aad baad u mahadsantaha.